Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada mar kale my best players. Aniga walaalkiin Aamina maanta waxaan soo idin wadaa. Waxaan wadaa maanta laba qaab oo free-kick loo dhaliyo. Labadaas qaab aad barataan. Insha Allah free-kick dambe ma gafi doontid, mana cuni doontid. Labada qaab waa normal free-kick iyo deep free-kick. Marka asxaabteyda intaasaan maanta idin wadaa. Video si fiican u daawo step by step. Insha Allah wax maanta ka dambeeyana free-kick dambe lama gafaysid. Marka normal free-kick ayaan ku hormarinaa. Ujeedaan screen inta taaban calaamada yar ayaan wax walba ku tusi doonaa. Marka normal free-kick ayaan ku hormarinaa. Marka si aad u dhaliso normal free-kick waxa lagaga baahan yahay 3 shuruudood. 3 shuruudood. 1 waa inaad kaamirada angalka ku tusisaa angalka. 2 waa inaad kubadda ka tuurtaa, kubadda ka bilaabaysaa halkaas aad ku geynaysaa adiga oo waliba soo jarayo. Kubadda ka bilow adiga oo halkaa ku geynay waliba adoo soo jaraya banaankiina ka aadin. Mid saddexaad oo ugu muhiimsan ayaa ah xawaare aad ku tuurayso. Xoog in aad tuurtana lama rabo, tartiib in aad tuurtana lama rabo. Si yar oo degan oo dhexdhexaad. Sidaas oo kale waa goal 100% dad saa u tuurto. Marka tusaale ahaan wadada hore nagu marayna angalka ku toosin kubaddan ka bilowna xaggan aan geyno xoog kaliya la tuurnaa maxaa dhici kara aad la weynaysaa hubaan. Marka asxaabay muhiimadda ugu weyn waxaa waraad ku tuurayso haddana tartiib aan u tuurnaa ila arag. Tartiib u tuurtana saas oo kale oo ka halaabaya. Marka mar walba xawaare yar oo normal ku tuur. Yaradun iska waaleyn angalka kaamirada ku aadis si fiican. Kubadda ka bilow halkaana gey adoo soo jaraya xawaare normal ku tuur. Hadda samayso waa goal. Waa kaas ila arag. Marka normal free-kick dad badan aad u garanay jira sida dalbeero, beeqam, berlo. Hadda marka beeqam miyaan tijaabin asaa ugu fiican. Angal ku toosiso kubadda ka bilow halkaana gey waliba adoo soo jaray xawaare normal ah. Hadda inta samaysid 100% waa goal. Haddana aan gudubno marka deep free-kick qaabka loo dhaliyo. Deep free-kick inaad dhaliso daartin waxa lagaga baahan yahay asagana shuruudo. Marka shuruud laga baahan yahay ahmida koobaad inaad playerkaaga gudihiisa intaad gasho details intaad soo gasho oo soo eegto inuu leeyahay in kala wax la dhaha deep shoot. Deep shoot ka playerada badanaa ma leh adoo miis waxa soo raacno maleynaya Pogba iyo Neymar intaan arkay aniga. Marka asxaabay kan qaabka hore kala looma tuurayo oo uu ka duwan yahay. Waxay iskaga mid yihiin angalka kaamirada ku tusinaysa free-kick walbana taas waa qasab inaad ku tusiso. Marka kan angalka waad ku tusinaysa laakiin inaad kubadda ka bilowdo xagga kuma geynaysid. Midda kale kan lamana soo jaraya asxaabay. Kan xagga hoose ayaa laga tuurayaa halka hoose ka tuursa korka korona ku geynaysa halkaan ku calaamaday. Marka lama rabo inay ka qaloocato. Markaad halkaa ku geysana inaad haysan rabaa saas markaa u tuurto kale. Saas aad u tuursa waad haynaysaa. Waa goal. Aan kugu celiyay marka sidan baa loo tuurayaa oo tusinaysa xagga hoose ayaad ka bilowsaa kor wadna haynaysaa kama foqaysid intaa kaliya sameey. Hadda waxaan fiirinaa marka hadda intaan tuurno oo meesha hayni weyna maxaa dhacaya. Halkaas kor ayuu ka aadayaa. Marka asxaabtu waxa la kaga baahan yahay deep free-kick inaad dhaliso daartid. 1 waa inuu playerkaaga deep shoot lahaadaa. 2 waa inaad toos u tuurtaa straight xariiq toos ah. 3 waa inaad marka aad tuurto halkaad ku geysay intaas inta ku calaamaday waa inaad haysaa inaad ka foqto lama rabo. Teeda kale free-kick kale kaga fiican yahay kor inuu aado ay hoos u soo laabanaya lama qaban karo marka mar walba 100% waa goal. Marka asxaabteyda waxay idin leeyahay ka faa'iideyso wacan maanta intaasaan jeclaaday inaan la wadaago dad video-gan daawatid maanta wixii ka dambeeya waxaan filayaa wax free-kick oo gafi doonto ma jiro oo dhalinaysa waa la hubaa. Marka dan ku faa'iideeyay comment ka muuqaal thanks for support hadaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saro inoo muhiim like taadana nagu dhiirigeli marka dhamaantii waa mahadsantihiin sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.